waan dhawahay walaal. Dhaawacyada aniga waxay igu soo gaareen santarka Marqaan oo ka tirsan degmada Booq bay igu soo gaareen. waxaan dilay ciidanka goobta ku sugan ee ciidanka liyuga iyo booliska ciidankaas ay dilay. waxaan ugu dilaan saldhigooda dhexdooda. waayahay muxuu ahaa markii hore ujeedka adiga markaas ciidamadu ay kugu gacan qaadeen ama adiga ay kugu dileen? ujeedku wuxuu ahaa gabar nin askari qaboba waxay nagu qabsatay guri anigu aan deganaa oo guri aan lahayn bay nagu qabsatay. gabadhii markii guriga nagu qabsatayna ninkii askariga ahaaba wuxuu noo isticmaalay awood shaati ciidan oo shaati dawladeed inuu xiran yahay ah. markii aan saldhiga tagnay oo ka dacwoonayna anaga dambiga kiiskii oo dhan nala saaray. kadibna anagu xaafadayda joogaana la soo xirxiro waxaana la keenay saldhiga. marka gabadhii guriga nagu qabsatay gabar ay isku family yihiin gabdhaha ay isku family yihiin oo sheekada ku jiray anagana la soo wada xiray. saldhiga ciidankaana la keenay xilli maqrib camal ah. habeenkii saldhigan ku waabarisanay oo halkaas joognay anagoo aflagaadooyin dhibaato badan ayna soo gaartay. subaxdii waagu markuu bariyaan soo kacay aan sirsuuli aagashina waardiyihii maxaabiista waardiyeynayba ii jiday oo wuxuu wax suuliyad galaysid ma lahan. markaan ku yiri sababna wuxuu ma galaysid ani waardiyihii markaa ninkii ciidanka maxaa jiray maxaabiista waardiyeynaya oo wada hadlaynaba waxaa noo yimaaday ninkan dambi kortoga degmada oo markaa xerada saldhiga ku dhex sugnaa baa noo yimaaday. kadib markii cayb igu bilaabay inuu dib ii tuuro kadibna u shibaaba markaa igu bilaabatay asagaana igu bilaabay asagii askari kala markaas xun ii dilay oo si adag ii jir dilay. labada nin baan ii dilay saasuna fal ku dhacay. aniga igama uusan hadlinba asaga aslagaado iyo markii marka aniga wiilka waardigaas xiisanay markii uu yimaaday asaga wuxuu bilaabay inuu aslagaadi iyo dib inuu ii tuuro asagoo gacan qaadka asagaaba bilaabayba waxba asagoo weydiinin igana hadlinin buu gacan qaadka igu bilaabay. markaas nabruhu saasi ku soo gaareen? nabruhu saasi ii soo gaareen gacan qaadka asaga igu bilaabay. kadib askari meesha tagnaa asaguna ushu asaguna igu bilaabay isku mar bay gacanta ii qaadeen. way arintan wax xiriira degmada ma kala sameeyso degmada ma la kulanteen arintan? anaga markii uu nabarkaasi igu dhacay ciidanku waxay sameeyeen xerada dhexdeedii bay igu jeebeeyeen anigoo dhiig baxaya luuya gacan bay jaabe igu xireen. waxa yimaaday wiilal aan faamil nahay baa yimaaday waxay dhan maadaama gabadha aad dishaan dhakhtar aan geysano way diideen ayaga baa kaxeeyay oo dhakhtarkii ii geeyay. dhakhtarkii markii geeyeen intaan dhakhtarkii markii saa la geeyay baa wiil yar oo xabar yar oo ahayo markii hore ay ka diideen inuu dhakhtarkii geeyo baa wuxuu iga qaaday sawirkan hadda social media la soo dhigay buu iga qaaday. markii ogaadeen inuu wiilkii sawirkan qaadayna wiilkii bay intay telefoonka ka qaadeen oo ka dhigi karayeen bay wiilkii haddana asagina dileen oo xireen. kadib ninkii dambe baaraha ahaayo aniga markii hore gacan qaadka igu sameeyay wiilku dhagax ku dhufta yara habarta oo ahay aniga wiilkiiba isla markiiba saldhigaana lagu soo celiyay. habeenkii adoo maalin duhradii meelahaas ahayd ilaa fiidkii baan saldhiga joognay. maqribkii markii ahaydna waana laga soo qaaday saldhiga degmada Booq baan loo soo gudbiyay oo halka 9 cisho aan ku xirnay. kadib markii saldhiga aan imaanay oo wax aniga horta daaweynaya wax daryeel daawa cidna ima siinin oo ma helinin anigoo wali nabri sidii igu yeelaan xataa familkayga dadkayga inay arkaan waa loo diiday maadaama si xun ay nimankan ii jir dileen. kadib waxaa lagu go'aan aniga dad familkayga odayaal adeerada wax soo kiiskii hawshi galay dawladda la shireen waxay go'aan ku qaateen marka ciidamada korneelka haysto meeshan joogay iyo maamulka degmada waxa go'aan lagu qaatay aniga dilka lay dilay in aan ku cafiyo oo aan ku furto wiilkan ninka askariga dhagax ku dhuftay si maxaa la dhihi jiray aan asaga loo xukumina waxay dhan waxaan xukuminaa 10 sano xukun camal baa wiilkan mutaysan kara maadaama asaa tahay gabadhan anaga maadaama gacan naga gaartay adiguna wiilkiina uu askariga uu dhagax ku dhuftay aan isku tuurno gabadha xuquuqdeedii xaqeedii ha ku cafisto wiilkan ha ku furato baa leeyahay yiri si baana lagu soo daayay. kiiskeedana waxaad kala xiriireysaan beedeen gudoomiyaha degmada oo degmadan ku wareejinay gudoomiyaha degmadan gabadha dhakhtar u diray oo daweynaya wax dambe oo ila hadlay wax dhakhtar ii dirana maan arkinin. kadib ana gudoomiyaha lugaheega ugu tagay waxaan ku yiri balanti baan ku socdaa 4 cisho bi meermeeriyay waxaan u tagay maalin waxaan tagay talaada wuxuu igu yiri jimcada imo jimcadii markaan ku laabtay haddana isniintu ii balamiyay isniinta haddana markaan ku laabtay wax jawaaba iyo wax qanciye midna kamaan helin. marka kadib waxaan doorbiday in arrinteeda social media soo dhigo. bishii 11aad baan aniga kiiskayga dhacay arrintii aniga dawladda iyo familkayga
waa la cabriyay aniga familkeyga waa la cabriyay waxaana lagu khasbay inay kiiskeyga la baabi'iyo si wiilkan xabsiga looga saaro ba aniga iyo familkeyga lagu khasbay haddana dawladii maxaa la jiray kuwan maamulka ah maadaama ay dhaheen gabadha waxaan u ballan qaadaynaa inaan dhakhtar geyno oon xaal marino wax dambe kamaan helin oo wara si balamineen imermerinay waqtigii baa igu dhacay haddana waxa laga joogaa adu bil iyo xoogaa baa laga joogaa inta kiiskeyga wuxuu soo gaareen ayaga imermerinay isku turtuurayay way hadda faham xagee bay ku sugan tahay aniga hadda degmada booq baan ku suganahay sidii la xiray maba laabanba oo xabsiga laga soo sidaayay waan joogaa kadibna anagoo xaafadayda joogaana la soo xirxira waxaana la keenay saldhiga marka gabadhii guriga nagu qabsatay gabadha ay isku family yihiin oo sheekada ku jiray yaanagana la soo wada xiray saldhiga ciidankaana la keenay xilli maqrib camal ah habeenkii saldhigan ku waabarisanay oo halkaasaan joognay anagoo aflagaadooyin dhibaato badan ayna soo gaartay subaxdii waagu markuu bariyay aan soo kacay aan sirsuuli aagashina waardiyihii maxaabiista waardiyeynayay baa ii jiday oo wuxuu yiri wax suuliyad galaysid ma lahan markaan ku yiri sababna wuxuu yiri ma galaysid ani waardiyihii markaa ninkii ciidanka maxaa jiray maxaabiista waardiyeynaya oo wada hadlayna baa waxaa noo yimaaday ninkan dambi kortoga degmada oo markaa xerada saldhiga ku dhex sugnaa baa noo yimaaday kadib markii cayb igu bilaabay inuu dib ii tuuro kadibna ushibaaba markaa igu bilaabatay asagaana igu bilaabay asagii askari kalaa markaas xun ii dilay oo si adag ii jir dilay labadaa nin baana ii dilay saasuna fal ku dhacay aniga igamaba uusan hadlinba asaga aflagaado iyo markii marka aniga wiilka waardigaas xiisanay markiiba uu yimaaday asagaa wuxuu bilaabay inuu aflagaadi iyo dib inuu ii tuuro asagoo gacanqaadka asagaaba bilaabayba waxba asagoon weydiinin igana hadlinin buu gacanqaadka igu bilaabay markaas nabruhu saas ku soo gaareen nabruhu saas ii soo gaareen gacanqaadka asagaa igu bilaabay kadib askari meesha tagnaa asaguna asaguna igu bilaabay isku mar bay gacanta ii qaadeen way arrintan wax xiriira degmada ma kala samayso degmada ma la kulanteen arrintan anaga markii uu nabarkaasi igu dhacay ciidanku waxay sameeyeen xerada dhexdeedii bay igu jaabeeyeen anigoo dhiig baxaya luuya gacan bay jaabe igu xireen waxa yimaaday wiilal aan faamil nahay baa yimaaday waxay dhan maadaama gabadha aad disheen dhakhtar aan geysano way diideen ayaga baa kaxeeyay oo dhakhtarkii ii geeyay dhakhtarkii markay geeyeen intaan dhakhtarkii markii saa la ii geeyay baa wiil yar oo habar yar oo ahay oo markii hore ay ka diideen inuu dhakhtarkii geeyo baa wuxuu iga qaaday sawirkan hadda social media la soo dhigay buu iga qaaday markii ogaadeen inuu wiilkii sawirkan qaadayna wiilkii bay intay telefoonka ka qaadan oo ka dhigi karayeen bay wiilkii haddana asagina dileen oo xireen kadib ninkii dambe baaraha ahaayo aniga markii hore gacanqaadka igu sameeyay wiilku dhagax ku dhufta yara habarta oo ahay aniga wiilkiiba isla markiiba saldhigaana lagu soo celiyay habeenkii adoo maalin duhuradii meelahaas ahayd ilaa fiidkii baan saldhiga joognay maqribkii markii ahaydna waana laga soo qaaday saldhiga degmada buuq baana loo soo gudbiyey oo halka 9 cisho aan ku xirnay kadib markii saldhiga aan imaanay oo wax aniga horta daaweynaya wax daryeel daawa cidna ima siinin oo ma helinin aniga wali nabri sidii igu yeelaan xataa familkayga dadkayga inay arkaan waa loo diiday maadaama si xun ay nimankan ii jir dileen kadib waxa lagu go'aan aniga dad familkayga odayaal adeerada wax kiiskii hawshi galay dawladda la shireen waxay go'aan ku qaateen marka ciidamada korneelka haysto meeshan joogay iyo maamulka degmada waxa go'aan lagu qaatay aniga dilka lay dilay in aan ku cafiyo oo aan ku furto wiilkan ninka askariga dhagax ku dhuftay si maxaa la dhihi jiray aan asaga loo xukumina waxay dhan waxaan xukuminaa 10 sano xukun camal baa wiilkan mutaysan kara maadaama asaa tahay gabadhan anaga maadaama gacan naga gaartay adiguna wiilkiina uu askariga uu dhagax ku dhuftay aan isku tuurno gabadha xuquuqdeedii xaqeedii ha ku cafisto wiilkan ha ku furato baa leeyahay yiri si baana lagu soo daayay kiiskeedana waxaad kala xiriireysaan beedeen gudoomiyaha degmada oo degmadan ku wareejinay gudoomiyaha degmadan gabadha dhakhtar u diray oo daweynaya wax dambe oo ila hadlay wax dhakhtar ii dirana maan arkinin kadib ana gudoomiyaha lugaheega ugu tagay waxaan ku yiri balanti baan ku socdaa 4 cisho bi meermeeriyay waxaan u tagay maalin waxaan tagay talaada wuxuu igu yiri jimcada imo jimcadii markaan ku laabtay hadana isniintu ii balamiyay isniinta hadana markaan ku laabtay wax jawaaba iyo wax qanciye midna kamaan helin marka kadib waxaan doorbiday inaan arrinteeda social media soo dhigo bishii 11aad baan aniga kiiskayga dhacay arrintii aniga dawladda iyo familkayga
waa la cabriyay aniga familkeyga waa la cabriyay waxaana lagu khasbay inay kiiskeyga la baabi'iyo si wiilkan xabsiga looga saaro ba aniga iyo familkeyga lagu khasbay haddana dawladii maxaa la jiray kuwan maamulka ah maadaama ay dhaheen gabadha waxaan u ballan qaadaynaa inaan dhakhtar geyno oon xaal marino wax dambe kamaan helin oo wara si balamineen imermerinay waqtigii baa igu dhacay haddana waxa laga joogaa adu bil iyo xoogaa baa laga joogaa inta kiiskeyga wuxuu soo gaareen ayaga imermerinaysu bay turtuurayay way hadda fahm xagee bay ku sugan tahay aniga hadda degmada booq baan ku suganahay sidii la xiray maba laabanba oo xabsiga laga soo sidaayay waan joogaa aniga waxaan dirayaa aniga qof waxaan ahay muwaadina oo wadankiisa ku nool haddana la dulmiyay oo xuquuqdiisa lagu tuntay aniga si xun baa la jirdilay ilaa hadda wax xaq ay xuquuqa helena ma lahan ilaa hadda cid dhakhtarisay ma lahan habeenkii ma seexdo aniga nabraha nimanka ay ii geysteen aad baan u xanuunsanayaa ilaa hadda wax daryeel caafimaad helena ma jiro marka waxaan ka codsanayaa cidii arinteeda wax ka qaban karta in cadaalad si degdeg ah lagu raadiyo ayna aad baa u mahadsantahay fahm waxaan rajeynaynaa cadaalad heshid insha Allah